Waa kuma wiilka barta tig ka furtay maxkamadda ee dadka sida xukunka wanaagsan ugu kala xukuma. Isaga iyo sheekha waa Sheekh Dabaca Sare, waa xiddig junior, bal ila daawo muuqaallo qosol badan oo uu dadku kala xukmiyey. Ugu horreyn waxaynu soo qaadanaynaa muuqaalkii ugu horreeyay ee uu ku soo caanbaxay. Bal ila daawo muuqaalkaasi oo aad kaaga qoslin doono. wax walba arki doontiin waxaa ka mas'uul ah يحبل yaa kale walaal macaan يحبل yaa kale thank you يحبل عنقاga اوكيالها مورغان وتا شي مسيح جدال baa kugu jirta masiixu dajaal Yaxbul ishaada toose u dansantaa. maxaa isha mobile miya maxaa ka damiyey إيش أنا لفكاga dhuftay warnaman yo ama khaldantiin ninka yaxbul nin afgaaban oo maskiin ah masaajidka aanan ka bixin ahaa يحبل ووالين yahay يحبل موقت إيش أنا تلاقيه ma i xaas ku galinaynay ama dib ugu laabo mudugtaad ka timay tobaakada aad ku iibin jirtay tawaaka aaranno wax khaldan kowde bal yaxbulow soo dhawow saaxib falxuma hadii loo soo samray adaa u soo samray war qofka fiiriya bal waadiga sheedaanka naagta weeye sheekh sheedaan ma nin baa mise naag waa nin raga weeyo ani xitaa saas oo maleynayn qofka cunkaayo amoodid aan qub ciyaalkeeda dayacday qabiil baa ka hadashay maalin kaste ninka qabiil iska carray soo matid maxaa u cararaysaa oo meelaha fta u la gelaysaa adduunka aakhirada kala neersan runta markii laga hadlo yaxbulow aakhira maysan saas soconaynin ma arrintan waxay noqonaysaa inuu sheekh idin dhex galo khaniis baa tahay yaa khaniis ah ninka idris beebel leeyahay wait labadiina maxaa yaa idin sheegay asma idin sheegay idris bebe khaniis sheekh kaale bal dadkan dhex gal oroma raba arug maxaa ka wadaa mashaqool baa wax shirqool mashaqool baa adigana sheekh cabsi maalmo waxaa keentay wax walba aan ogoosha inaa ka cabsatid labadan qof waxay isku haystaan kaliya mid waxa lagu haystaa xoola asig uusan lahayn uu wataa midna waxa lagu haystaa qabyaaladiistii horta ninkan idris bebel dhaayo way ka soo yara ule wax walba aa weydiisid qabiilo kugu sheegaa fiiriya sheekh idris gal ma bilowda magacaa habar gidir ma ninkan sheekh systemka mala socdo u kaari assalaamu calaykum idris bebe hawiye daarood hebo seerta marka walaa ka soo dirto wallahi jabi kala ku jirtaa koode jabigaas inaan ka soo dhex bixin naqanaysaa maskaxdaada inaan gadino ay naqanaysaa sawirkan ku tusaa si fiican u fiiri qofkan yaa way reer tolka بسم الله الرحمن الرحيم aan ku sii soconno muuqaalada xiddig junior oo ah xiddigga barta tiktok ka shidan muddooyinkan dambe. bal ila daawo muuqaalka xiga. wax walba arka doontiin aniga mas'uul ma kiihi هذا مسؤول كا آخر هذا الواسطة horta sheekh video fiiri maalmahan si ba ii raasunoosaan waxaan ahay gabadha ugu qurxoon magaalada Nairobi waxaan ahay gabadha ugu quruxda badan magaalada Muqdisho والعيال شيطانك اسكننا aniga waxaan ahay gabadha ugu istaalka badan uguna quruxda badan galmudug cajaa'ib war quruxdeedu waa u jeedaa way iska muuq warada kaale sheekh wuxuu dhaw maqluus miya shaydaanka iska naar الشيطان اسكننا أنا قرح بدنا أنا وإيجيدا هذا قالسو قرا اسكا تورين أنا أيضا هوا كقرح بدنا هاي سامي سنة ولا لي أدو الصرف لا يقول خدمي sheekh waxaa xaqiiqa ah qof walba inuu rabo gabar qurxoon aniga gabar qurxoon aan rabaa waxaan u dhaaran karaa adigana gabdhaha qurxoon ha ku haysatid اللي ما يعني قادر سايقول خدمي what تنا قرح بدنا ما برا يلا يسيو يجعل ما جعل sheekhiyo bootooda iga daysid aniga adiga waa isbaqaanaa gabdhii adiga aan noogu digtaa guursanina nagu dhaxday hadday ku soo raadsadaan gabaran jeclaanaysaa marka ناقص كده هذا او ان كومبارنا هاي kombaarna maxaa la dhahaa darteeda shan aa u dhimatay hadda mid isbitaal ku jiro kombaarna waxaa laga yaabaa fikirkeeda inay tahay fikirkeeda lagu tixgeliyo war adiga waalan tahay kaali shan qof aa yaacdaa lagu dhahay fikirkaa gaad loo socon tahay fikirkeeda lagu taxgeliyo war sheekow meesha wallahi lagu waasho wax kala ma yaba war wax kala ma yaba toban wiil aa darteeda soo cabtay rag waxaa jiro oo aniga oo sun iyo cabay oo 3-4 meelahaas gaarayo وما حكوا قوة ولا لي ayagaa sunta cabay ani ma dhahay لو هدي بس كل دقيقين sheekh wallahi billah waa il dheer tahay waxyaalo badan aan isku arkay wax kala aan qaadanoon malaan topic kala noo furin hadda arinta waxaan ka hadloonaa quruxda bas aad waxa isku aragtay dhan meel noo dhig sheekh xitaa arinta inuu ka hadlo mar waxta wuu jooji bas waa الصومال مريولي انا فران idinka qaaday magacay waa Shuur Shacni shukriyay naga raali naqo video waa soo xirnay sheekh xataa waa ka xanaajiseen hadii aad dhihi rabtid gabadh ugu qurux badan Soomaaliyan ahay bas booska soo ku gelinayna hadii wax kale ah haysid sheekh lagu soo celi kartid tafadal waxaan ahay gabadha ugu madow degmada Gurcaal waxa iga kaxee ilaahay baan ka mangala taas
ورا بدي شيء okay balcaanow muuqaalkeedii saddexaad sidoo ayuu u dhignaa xidigow bal ila daawo asaga وحول بارك دونتي waxaa ka mas'uul ah علمي yaa kale يا شيطان بايقال على محمدني يا الله البلوني يا ودنهدو بيلو بارك الله قلبي قاعد يطالع يا محيري okay waa garanay muuqaalka saddexaad balkan afaraadna waa sidee isagana وحول بارك دونتي waxaa ka mas'uul ah فرماجة yaa kale فرماجة yaa kale محمد عبد الله فرماجو yaa kale wax dugaag ah oo bahalla ah oo unukaala maahan caqli kale aan hay maya ee waxaa ka mas'uul ah reer cabdwaaq carab baynu nahay sheekh adale ko noo bilaabay I'm sorry waan ka xumahay halna ka aada okay sheekh iga raali naqo had maxkamad uu sii wada karnaa nacam محمد عبد الله فرماجو فيلا سومالي دح فديو ما حل ما تاس ولقد لما سقاي تاس ka galay wallahi ma aqaani waxaa muuqata in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday oo looga fadhiyey door odaynimo inuu ka doortay inuu dalka u jiheeyo godkii mugdiga ahaa dhici kara maaha caddeena loo baahan yahay waana caddahay ka galay fiiri maxkamadan adduunka dhan laga daawadaa hadda waxaad ogaatiin isla xaadirkan adduunka oo dhan in la idinka daawanayo reer muxaafid shacabku maxaa ku leedihiin farmaajo degdeg ma qabo meel uma socdo shidaal kuma socdo mucaarad idinkana ما دقدق سنين ما أردينو وقت النجوم الصعدة macnaheedu waxa weeye qof fiyow maaha أنا قاعد مركز ضوالنا may waalidin kuma ogeen fiiri maxkamadan dagaala ka dhigida ma sheekh waxaan sameeynaa labadan group xilka waa ma kaleexinaynaabo waxba igama khaldana qof waxaa jiro oo balan qaadyo fiican sameeyay qofkaasi inaan doorano aanu wanaagsan sida Soomaali ma aragtaa dib u dhiskeeda waxa laga fikiro sheekh tus bumarka bilaash waan niga dhigaya wadooyinka waan nii samaynaya cashuurta waan niga dhimaya diinta butadan subag nigaga sugaya bismillaahi raxiim okay xidigow muuqaal shanaad oo aad inala wadaagi lahayd isagana ma jiraa bal haddaad jiro inoo waxaan barka doontii waxaa ka mas'uul ah فرماجو magaciis maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne ma ah ku daayay dadka muslimiinta ah inaad isku dirtaan xaraam weey waa madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya liiska Xasan Sheekh iyo isaga ku wada jira waxa anaga noo akhrinaysan arka hadii la gudmay saanab ayagan raggi ka kuma ku dhageystaan war waxaan waqtigiina ku luminina Soomaaliyeey 4 sano ah iyo halka sano sharci darrada ku fadhiyo 5 sano waa ku mahadsan yahay doorashada waa socotaa waana dhacaysaa ka jooga bugbugtaan iyo bagbagacdaan ka jooga maxamed cabdullaahi farmaajo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa inuu isu soo celin fiiriya fiisha ilaahay baan ku dhaarshay no more farmaajo no more farmaajo no more farmaajo saqajaan mooriyana baad hadii la gudmay sheekh ninkan iska dayay waa nin iska macaarad ah qol qofaas oo galo maleynaya walaakis farmaajana waa banaysay waxaan u sheegaa ninka amar qaada kara mana gadgoodo dhan dawladdan waa dhacday diya rooble xataa waa dhacay wallahi ma aqaan wiilish meeshay kala qaateen farmaajo bal gabdha aan fiirino abaayo farmaajo mid ilabo fariin u dir madaxweyne farmaajo fariintaan u diraa xilkiisiyo mar hore u dhaco fariin u diray ma walaalayaal waxay warkooda inaad rumaysataan maaha walaalayaal ma waxa laga yaabaa inay ragga groupkooda ay tahay bal adigana abaayo madaxweyne farmaajo madaxba maahe maxaa u dira فرماجو مريحان ميا nacam wuu yahay ismaa miya anuu bishak igelibi ninkan mida farmaajo aan ku arkayay marko amur marko dee farmaajo ma walaal saqajaan baad walaalayaal فرماجو مريحان ما shaki baba igale waxba shakili ninkan adigu roo inuu naga waalo فرماجو مريحان ما heeda yuu yahay dee reer Somaliland bismillaahi raxiim waxaa bidi sheegaa sharbu waa visa video loo soo war waxaa lagu sameeyay maxamed aydi kuwaan igu taqran kulligooda weydii badrooni ha iska dhigin hadda kale okay weli sheekada ma dhammaadin ayaan filaa ilaa iyo 2 muuqaal ku dhawaad ayaa inoo hartay bal aynu ku sii soconno muuqaalka xiga wax walba warka doontiin waxa ka heshaan wax bay gisiin okay maxkamad way furantahay maxkamadan been in la sheego looma ogola wallahi been meedin sheegay waa ogahay social media inaysan maxkamad ahayn hada maxkamada joogtaa hay sheekh maxkamad baan taagay wax walba si ilaahay la og yahay aan u sheegaa waad ku mahadsan tahay asxaabtan waxa uu sheegaynaa maxkamadan maanta waxa ku casuuman Awas Baafo hay sheekh nacam Awas Baafo garta adaa gooynayo saxba diyaar ma tahay aad iyo aad abaayo kaamira intaysan bilaabinin maxkamadda sheekha saaran tahay mala socotaa si fiican maxkamadana been in la sheego lama ogolo sax wax hadda ku qarsan ma jiraa may
okay maxkamadda way noo furan tahay waa arrin secret oo inta badan inaan ka hadlano ma reebo okay laakiin maxkamadda sheekha saaran tahay qasabna way kugu tahay inaad runta iska sheegtid marka maadaama ay hadda qasab igu noqotay inaan haddana warbixintan aan bixiyo cabsiraanka noo caday cabsiraan ninkayga ma ahan laakiin waa aqaana naya u noqon reerkaag wixii way dhaceen adiga wax ma ka bedeli kartid koryaas oo shan caruur dhashay wax caruurana maliya guurna ma soo marin Awesbafo please marka ani aan kugu dhaho garta goy un hadal hooyo ilmaheeda inkareysa inay jirto uma malaynaayo shan caruur soo dhashay may dhib ma leh taas ilmo waa dhali karaa taas ma dhib leh barankii zinada laa ilaaha illa allah muxuu yiraahdo ishayna muxuu waa la qabaa waa qaraabataa oo kala day arrintaas horta waa qalad inay saas yiraahdaan arrintaas waa sax waa qalad midna ma dhihi kari because adiga waa iska qaranaysa maxad la gambanaysa adiga qof si fiican loo yaqaana qof gabanaysa ma ahayn okay haddii ninka guriga isla joogteen uusan adiga ku qabin aabahaaga miya marka aabahay ma ahayn waa run laakiin wuxuu ahaa qof aniga isoo korsaday arrinta macquul ma baabo birabaay hadday waa iga balan qaaday inaadan maxkamadan wax kaftan aadan kusoo bandhigin ciyaarta naga jooji sheekh arrintan adiga inaan soo dhex gashid waa khasab waxaan idin weydiinayaa ninka gabadha guursaday magaciis kamaal sheekh magaca afahmi karta baa magaca xabar waaye kamaal dabcan gabadha reer xabar waa baleena abba aad halkee ku dhalatay America iyo Canada معقول ما بعرف باخذ جيران اشد معادي شيخ يقرا نقو arrinta arrin kaftan ma ahan inaan qoslamaysanaheen I'm sorry waan ka xumahay halna ka aada okay aniga iyo sheekh Ibraahim galna bixinayna hadda abaayo odigan cala cali maxaa leedahay aniga ilma qabo kamaal soo noo sheegay no kamaal waxba noo ma sheegin kamaal wax ma noo sheegay kamaal gabadhan caruur may leedahay shan ciyaal okay kamaal caruur leedahay oo ku dhahay shan oo ku dhahay abaayo arrintan kamaal sheegay xiriirkeena inay wax u dhimayso oo malay maayo hadda ugu dambeyntii maxaana leedahay bataatan ba ani inaanan li qabin okay awesbafo garta noo gooy igita okay xidiga tiktok ugu dambeyn caawa maxaad nooga tagaysaa aad ayaad nooga qoslisay bal muuqaalkaaga ugu dambeeya inagu sagooti adigoo mahadsan wax walba ka danti waxa ka mas'uula Soomaalida tan ila meerasada yaa riixay bi riixay bi maxaa ka wadi noo sheeg sheekh dadkii baadiya xataa waxay keeneen inay isku shukaansadaan yaa riixay yaa riixay asxaabe yaa jiibi yaa riixay baadiya xataa wala kano mid kamid ah harqaanleyda ayuu wuxuu sheegay 300 deen in loo siiyay yaa riixay ilaa 300 waxa laga soo buuxiyay yaa riixay bi reer baydhabo waxay bilaabeen shubinada inay ku soo adeegtaan yaa riixay ana yaawe meeki yaawe Mustafa yaa riixay liilay wa yaa riixay bi diinisa su'aashaas adiguna aad rabtid cid riixday bi inaad ogaatid waxa jira ciyaal umbriya ka alkoolistayaala xaq kala fay marka si u soo aanbaxa waa alkoolist qaarkood waa laga roorayaal khaniisyo way sheekh dad baa xanaaqay waxay taagan yihiin yaa riixay blogan saara maxaa yaa xiiray yaa riixay wallahi blog wayna saaraya oo billahi blog wayna saaraya soo ma dhaaran dadka live ka soo gala xataa saameyn ayay ku yeelatay yaa riixay yaa riixay wala riixay yaa riixay army adaa lagu riixoyaa naa maxaa tiri idinkaan ila riixoyaa acuudu billahi min ashaytaan rajiim الشهادة الصومالية شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ده waryaa xiiradan yaa ifahansiiya waxaad riixay faham leedahay idin sheegay dadka qaar ma fahansan isaan ibara ay fasiraya riixay urur baa jira kristaana marka oo social media ku faafiya gaalnimo oo nawaala anaga waalno dad waalano xanuunsan aanahay markaas nasiibaaleysiina oo moogu noogu direysan maxaana gal waxa idin riixayn sheekh horta arrintan wiil Soomaali ayaa Soomaalida dhex keenay laakiin asalkeeda meesha ka soo bilaabatay aan ka dawgeeyo intaadan wax ka dhihin because adiga sidaada banaan waa af dheer tahay sheekh wallahi iga fakatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh wallahi billahi iga soo baxsatay waxaa riixay bi ciddii riixday ma aha jawaabtaasi midaad anaga naga helayso muhiimaddu waxa weeyaan inaan tiktok anagu aan qabsano nacas iyo nacas kala jirin aniga sheekh rabtaa inaan isku dirtid idinka horta yaa tihiin nahay yaa riixay bi yaa ka tihiin ma laga shubtay bismillahir okay iminka idinka aan idin soo joogsanaya asxaabta 6 muuqaal ee aynu kusoo gudbinay maanta muuqaalada xidig junior adiga ka aad ku cajab geliyay xaqiiqatan waxa ay ahaayeen muuqaalo qosol badan oo laga shaqeeyay waqtina la geliyay aad iyo aad ay ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalka
fadlan haddaa ka heshay janalka subscribe dheh muuqaalo aada u qurux badan oo kuwan camal ayaynu soo gelin doonaa sidoo kale muuqaalka like saar oo inoo share garee aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Follow me, I follow you, man, that's the code. The followers, the credit cards I can't afford. Just show love on my Instagram. Nigga, show love on my Instagram, yeah.